grammar ayaan ku barnaynaa qaybtan. waa qaybta ugu muhiimsan, waa qaybta ugu adag. The difference farqiga between u dhaxeeya demonstrative pronouns magacyaalada wax muujiya and demonstrative adjectives iyo sifooyinka wax muujiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. waa qaybteennii grammarka ahayd, waa qaybteennii naxwaha ee ugu muhiimsan barashada luuqadda sidan hore u sheegay. The difference farqiga between u dhaxeeya demonstrative pronouns magacyaalada wax muujiya and demonstrative adjectives iyo sifooyinka wax muujiya. This is my pen. Kani waa qalinkayga. haddii la yiraahdo waa demonstrative pronoun magacyaal wax noo muujinaya wey. oo this is my pen. Kani waa qalinkayga. haddii aynu adeegsanayno demonstrative adjective waa inaynu la imaanaa ismi inuu ka dambeeya dista oo noqonayso this pen. qalinkan is mine, waa kayga. waxaan filayaa in aad loo fahmi karo. This in the first sentence, jumlada ugu horeyso ama jumlada koobaad, stands for waxay u taagan tahay this pen, qalinkan. And is therefore sidaa daraadeedna waxa weeyaan a demonstrative pronoun magacyaal wax muujiya ama na tusa. In the second sentence, jumlada labaad, this qualifies waxa ay qeexdaa oo ereyga this qualifies waxa uu qeexaa the noun magaca pen ee qalinka. And is therefore sidaa daraadeedna waxa weeyaan a demonstrative adjective sifo wax noo muujinayo. In the first sentence, jumlada ugu horeyso ama koowaad, alayiri this in the first sentence stands for waxay u taagan tahay this pen, qalinkan. And is therefore sidaa daraadeedna waxa weeyaan a demonstrative pronoun magacyaal wax noo muujiya. In the second sentence, jumlada labaad, this qualifies waxa ay qeexdaa the noun ismiga ama magaca pen ee qalinka. And is therefore sidaa daraadeedna waxa weeyaan a demonstrative adjective sifo lahaansha ah. meeshaan waxaan ku kala qaaday the difference farqiga between u dhaxeeya demonstrative pronoun and demonstrative adjective. These are your trousers. waa demonstrative pronoun. kuwani waa saraawiishaadii. Those are their fields. kuwaasi waa beerahoodii. That is my dog. kaasi waa eygaygii. I want the black one. waa qaybtan waa demonstrative pronoun. These trousers are yours. haddii la yiraahdane waa demonstrative adjective. Those fields are theirs. beerahaas waa kuwoodii. That dog is mine. He came one day. Notice marka ogsoonow ama ogeysiis. This and these, this oo kan ama kani ama tani ah, and these oo kuwan ah, oo this wadarteedu these noqonayso rifaato waxaa loo tixraacaa persons shakhsiyaadka oo things ama shayada near u dhow the speaker hadlaaga. That and those, oo that waa mufrad and those inay wadarteedu tahay rifaato waxaa loo tixraacaa persons shakhsiyaadka and things shayada far away ka fog from the speaker hadlaaga. Demonstrative adjectives sifooyinka wax noo muujiya sometimes also xitaa call waxaa loogu yeeraa determiners xitaa waa la yiraahdaa. Thanks. ألف لخر نبي ألف لوس نبي ألف لا قضي